kulanti wacan wanaagsan daawadayaal halkan waa warsan news waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka qaybtan waxaynu ku eegi doonaa Ethiopia oo soo bandhigtay ciidamo xoogan oo ay sheegtay inay ku fidin doonaan Soomaaliya iyo Eritrea macluumaadkii ugu dambeeyay qorshaha Abiy Ahmed xilligan uu ka damacsan yahay ciidankan xoogan uu soo bandhigay ayaan halkan ku eegi doonaa wax kale oo aan idin soo gudbin doonaa taliyaha cusub ee ciidanka xooga dalka Soomaaliyeedna waxa uu magacaabis ku sameeyay taliisyo cusub oo guutooyinka iyo ururada ciidamada gorgor ah isbedelkan weyn xilligan waxa ku soo beegay ayaan halkan ku eegi doonaa wax kale oo aan qaybtan idinku soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeysay buuraha kabo way gaareen xubnihii ka qayb galay dagaalkii ka dhacay magaalada Baydhabo xarunta ku meel gaar ku ah maamulka Koonfur Galbeed Axmed Madoobe oo safar ka ah Muqdisho macluumaadkii ugu dambeysay madaxtooyada oo xiriir kala duwan xubnaha golaha mustaqbalka Soomaaliyeed la sameysay ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa soo dhawaada saaxiibayaal dhamaantiina muuqaalkan meel fog gaarsiya aragtidiinana qaybta faalada ama comment kaga soo dhiibta hagaagkan ku bilaabo Ethiopia ayaa soo bandhigtay ciidamo cudud leh oo aad u xoogan oo ay sheegtay inay doonayso inay ku fidiso Soomaaliya ilaa Eritrea waxaana banaanka la soo saaray ujeedka uu ka damacsan yahay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia ciidamadan culus ee iminkan uu soo bandhigay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa axadii shalay ahayd ku dhawaaqay in dalkiisa aan badlaan uusan ahaanaynin Ethiopiana uu u tababaray ciidamadii uu ku dari lahaa howlgalka badda isagoo ciidankaasi ku sifeeyay gaashaan difaac u ah gobolka xilli ay cirka isku sii shareerayso xiisada ka taagan guud ahaan geeska Afrika isagoo oo ka hadlayay garoon ku yaala magaalada koonfurta ah ee dalka Ethiopia ayuu Ahmed sheegay Abiy Ahmed uu sheegay in isbedelkan loola dan leeyahay la dagaalanka burcadbadeeda iyo argagixisada badaha ee ka jira marinka xasaasiga ah ee badda cas wuxuuna tilmaamay in aaga amniga howlgaladan ay ku soo bilowdeen ama ay ka soo bilowmanayaan cirifka Soomaaliya ilaa dekada Massawa ee dalka Eritrea diyaar garowgeenu waxa uu salka ku hayaa in damaanad qaad la siiyo nabadda guud ahaan qaaradda Afrika ayuu yiri Abiy Ahmed xilli uu dadweyne kala duwan uu kula hadlayay munaasabadan lagu xusayay sanad guuradii 65aad ee ka soo wareegatay aasaaska taliska howlgalka gaarka ah ee Ethiopia muddo 10 sano ah Ethiopia waxa ay tababaradeeda ciidan xoog ku saari jirtay bariga buuraha iyo wabiyada balse axadii Abiy Ahmed waxa uu shaaciyay in ciidamadiisu haatan ay si cad u ballaariyeen awoodaasi si ay u daboolaan howlgallada badeed iyo isku dhafka la xiriira in ay si rasmi ah uga liban helaan howlgalka loo diyaarinayo isagoo sheegay in wada shaqeyn dhow ay la yeelan doonaan qeybaha kala duwan ee ciidamada sugidda amniga jiidaha muhiimka u ah badda ayuu sheegay inay si gaar ah ay ciidankan isugu xilqaameen waxa uu sidoo kale soo hadal qaaday daadgureynta ciidamo gaar ah oo ku qalabeysan tiknoolajiyada casriga ah way ku jiraan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee wax basaasa iyo kuwa ismidaamiya waxa uu sheegay in awoodu ay ku wajihi doonaan amaba ay ku burburin doonaan fariisamaha adag ee cadowga ay leeyihiin uusan carabka ku dhufan cidda uu kala jeedo taliyaha ciidamada qalabka sida Ethiopia ayaa waxa uu isna munaasabadan isagoo ka hadlayay sheegay in la soo xiray dhoolatuska xeeladaysan ee qalinjibinta commandosta cusub waxa uu xusay in inkastoo uu dalka soo maray sanado colaadeed sokeeye ah haddana ay Ethiopia dib ay u dhistay ciidan difaac oo la isku haleyn karo waxa uu sheegay in ciidankan ay ku sifoobeen anshax wanaag kana madax bannaan yihiin iyo xulufaysi siyaasadeed sida uu hadalka u dhigay taliyaha ciidanka militariga Ethiopia markan haddii aynu eegno taliyaha cusub ee ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ayaa isbedel ku sameeyay talisyada ururada iyo guutooyinka ciidamada commandosta gorgor ee militariga Soomaaliya taliska ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa uu isbedel weyn ku sameeyay dhammaan taliyaasha guutooyinka ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee commandosta waa gorgor kuwaas oo si heer sare ah ay u tababartay dawladda Turkiga kuna qaatay tababar gudaha dalka iyo dibadiisa
sida aynu kasoo xiganay ilo muhiim ah oo ka tirsan xafiiska taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Sareeyo Guuto Ibraahim Maxamed Maxmuud ayaa xilkii ka qaaday taliyaasha afarta guuto ee ciidanka Kumaandoosta Gorgor isaga oo soo magacaabay kuba cusub oo ah dhiig cusub oo ku shubayo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. taliyaha guutada 17aad waxaa loo magacaabay Gaashaanle Xuseen Moolif waxaana xilkaasi laga qaaday Gaashaanle Dhexe Maxamed Khaliif Nageeye. taliyaha guutada 18aad waxaa loo magacaabay Gaashaanle Dhexe Aadan Maxamed Faarax waxaana lagu bedelay Gaashaanle Maxamed Cumar Anwar. taliyaha cusub ee guutada 19aad waxaa loo magacaabay Gaashaanle Cabdulaahi waxaana xilkan laga qaaday Gaashaanle Dhexe Cabdulaahi Cusuble. taliyaha guutada 20aad waxaa isna loo magacaabay Kabtan Taajudiin oo lagu bedelay Gaashaanle Dhexe Maxamed Sheekh. waxaana isbedeladan ay yimaadeen kadib markii ay soo jeedin ka timid taliska ciidanka xoogga gaar ahaan taliska ciidanka lugta oo dalbaday in isbedel lagu sameeyo qorshaha lagu howlgalayo ee cusub dhiiga cusubna lagu shubayo dhammaan talisyada guutooyinka iyo ururada ciidanka sida gaarka u tababaran ee Kumaandoosta Gorgor. markan haddii aynu eegnana macluumaadka kale warkeena ku jira waxaa qayb ka ah Axmed Madoobe Muqdisho ayuu ka ambabaxi doonaa saacadaha soo aadan waxaana gabi ahaanba fashil ku yimid xiriiro toos ah oo madaxtooyadu ay la sameysay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. ila muhiim ah oo aynu ka soo xiganay dhinaca madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe markan waxa uu ka boorsa xiranayaa sii joogistiisii Muqdisho isagoo u hayaamaya dhinaca magaalada Kismaayo ee xarunta u ah maamulka Jubbaland halkaas oo uu doonayo inuu ka karkariyo siyaasadda Soomaaliya kadib fashilkii wada hadaladii u dhaxeeyay Villa Soomaaliya iyo xubnaha golaha mustaqbalka Soomaaliyeed kaas oo saacado badan qaatay maalmana ay u joogeen isagay wafdigiisa ka qaybgalka gogashaas oo rajo badan laga qabay. Axmed Madoobe ilaha ka agdhow ayaa inoo xaqiijiyay inuu go'aansaday inuu isaga hayaamo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaana maalinta berri oo Talaado ah oo ka ambabixi doona Muqdisho isagoo u gaari doono Kismaayo halkaas ayuuna ka karkarin doona siyaasadda ka dhanka ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo xubnaha la socda ayaa ku jira diyaar garowgii ugu dambeysay ee ay Muqdisho kaga ambabixi lahaayeen. waxaase jirta in Saciid Cabdilaahi Dani macluumaad soo baxay ay sheegayaan inuu dalbaday inuu sii joogo Muqdisho ilaa af uu u bixiyo siyaasadda taas oo micnaheedu tahay taas oo la micno ah in Dani uu ka dhabeenayo hadal kol hore uu jeediyay ahayd inuusan Muqdisho dhinac uusan uga socon ilaa jihada siyaasadda uu ka hagaajiyo. Saciid Cabdilaahi Dani ayaa la filayaa in Muqdisho uu ka bilaabo ololo la xiriira doorashada maadaama uu yahay murashax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya. waxaa la rumaysan yahay in kulan ay maanta ku balansan yihiin xubnaha golaha mustaqbalka Soomaaliyeed laga soo saari doono natiijooyin wax badan ka bedeli doona siyaasadda Soomaaliya una badan guudin in ay qaadi doonaan tallaabooyin waaweyn marka la gaaro 15 bisha May ee sanadkan aynu ku guda jirno oo ku eg maalinta muddaxileynta madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya. Puntland iyo Jubbaland macluumaad soo baxay waxay sheegayaan in hogaanadooda xalay is-arag ay yeesheen ay isla meel dhigeen inay qaadaan tallaabooyin ay ka mid tahay xulista labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ay toos uga bilaabayaan deegaanadooda. waxaa macquul ah in Dani uu u wakiisho madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland halka Axmed marka uu ku laabto Kismaayona uu ka karkarin doono siyaasadda ku qotanta soo xulista xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee Jubbaland ku matalaya dowladda dhexe ee Soomaaliya. si kastaba ahaatee Villa Soomaaliya ayaa iyana xiriiro kala duwan xalay la sameysay xubnaha mucaaradka iyadoo u muujisay in wali ay taagan tahay fursad lagu wada hadli karo oo aysan ahayn in la burburiyo gogasha ay madaxtooyada kol hore dhigtay xukuumadda. waxaana guul daraystay isku dayo la doonayay in xubnahan lagu qanciyo dib u soo laabashada Villa Soomaaliya si wada hadallada ay u socdaan. wixii macluumaad ah iyo warar ah ku soo kordha xaaladda siyaasadeed oo markan u muuqanaysa mid wajahaysa jiha cusub muuqaaladeena kuwan xiga ayaan idinkula wadaagi doonaa. dhinaca kale qaybta waxaa ka ah wararkeena oo aad sida hordhac ku daawateen
degmada Buur-Hakaba waxaa gaaray saraakiil iyo ciidamo xoogan oo ka qayb qaatay dagaalkii ka dhacay magaalada Baydhabo maalmo ka hor halkaas oo khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac laga soo diiwaan geliyay degmada Buur-Hakaba ee gobolka Baay oo wajahaysa muujado siyaasadeed oo xoogan oo ka dhashay kadib go'doomintii madaxweynaha waqti xileedkiisu dhamaaday ee Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen uu ku soo rogay waxaa degmadaasi ay u muuqataa mid laga abaabulayo qorshe ka dhan ah Laftagareenka ku sugan Baydhabo ee doonaya in uu duulaan xoogan ku qaado degmada Buur-Hakaba degmadaasi waxaa gelinkii dambe ee shalay ilaa xalay gaaray xubno ka mid ahaa kuwii ka qayb galay dagaalkii ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaar ku ah maamulka Koonfur Galbeed oo kala ah ganacsade Cadow Eedan Nuurow oo gelinkii dambe ee shalay gaaray Buur-Hakaba waxaa isla xalay degmada Buur-Hakaba gaaray Cabdiraxmaan Nishow oo ah sarkaal ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya oo ciidamo ka amar qaata Laftagareen kula dagaalamay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaar ku ah Koonfur Galbeed macluumaadka soo baxaya ayaa sheegaya in gaadiid dagaal oo aad u fara badan hubka noocyadiisa kala duwan ay la tageen degmadan waxaana u soconaya kulamo isdaba joog ah oo looga hadlayo abaabul ciidan oo ka dhan ah maamulka Koonfur Galbeed ee waqtigu ka dhamaaday uu hogaaminayo Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen macluumaadka soo baxaya ayaa sheegaya in degmadan ay u gaareen xubnahan in ay ka difaacaan duulaan xoogan oo dhinaca Baydhabo kaga soo wajahan ee uu amray madaxweynaha waqtiga uu ka dhamaaday ee Koonfur Galbeed Laftagareen xogaha waxay tilmaamayaan in kulamo looga hadlayo dardargelinta qorshaha abaabulka ciidan isla markaana taageero lixaad leh loogu heli lahaa ay imikan ka soconayso degmada Buur-Hakaba ee gobolka Baay waxaana macluumaad kale oo laga helayo madaxtooyada Koonfur Galbeed ay xaqiijinayaan in Laftagareen uu diyaariyay shakhsiyaad uu u magacaabayo Laftagareen in uu diyaariyay magacaabista taliyaha daraawiishta degmada Buur-Hakaba iyo gudoomiyaha degmadaasi oo uu doonayo in uu kaga jawaab celiyo tallaabadii ay kaga hor yimaadeen gudoomiyaha degmadaasi iyo taliyaha daraawiishta qorshaha go'doon ee Laftagareen uu geliyay degmadan Buur-Hakaba xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu deegaan doorashadoodu tahay Koonfur Galbeed ayaana arintan la rumaysan yahay inay dusha ka riixayaan waxaase ay u muuqataa in Laftagareen markan uu wajahayo muujado siyaasadeed oo aad u xoogan iyo guluf colaadeed oo ah kii ugu weynaa uu wajaho 7 sano ee uu maamulayay maamulka Koonfur Galbeed Laftagareen xubnaha dhaliilo waxay rumaysan yihiin in uu ku fadhiyo kursi dhiig leh suurtagalna aysan ahayn in si sahlan uu uga dego hase ahaatee abaabulkan micnaheedu uu yahay sidii meesha looga saari lahaa tani waxay muujinaysaa in si joogistiisii Koonfur Galbeed iyo waayihiisii maamul Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen marba marka ka dambaysa ay gud ku sii dhacayso rajadiisa hogaaminta maamulkaasi waxa uu xogo kale ay tilmaamayaan in uu la soo xiriiray dhinaca dowladda federaalka ah ee Soomaaliya hase ahaatee dowladdu albaabada ayay ka xiratay guud ahaan Laftagareen ka jawaab celinta dalabkiisa degdega ahaa ilaa gunaanadka muuqaalkan haddii aad nala soo gaarto saaxiibadana qiimaha badan oo aan idinkaga mahadcelinayaa nabadgelyo